1993 waxaan ahaa 26 jir. ma maqashaa codkaas sow sida muusiga maaha Anigoo 16 jir ah ayaan gawaarida iibin jiray. sow ma jilicsanaa raaxo kaliya weeye Waxaan khatar ku ahaa iibinta gawaarida. ma ogtahay in halkanayga xaaskaagu joogto maya war waa gabadh kale Markii aan gaari iibiyey aad baan u farxi jiray. gudaha fiiri gudaha muu soo jiidatay aad baan u faraxsanaa Lacag aad u badan baan ka heli jiray. Aad baan u faraxsanaan jiray. Waxaan la kulmay gabar aad u qurux badan oo la yiraahdo Linda. Aad bay u qurux badneed. 3 bilood gudahooda ayaan gabadhaas ku bartay. Waxaan ka dalbaday inaan guursado. Waxaan doonayay nolol cusub oo farxad leh. Iyaduna waxay rabtay inay maqaayad furato. Waxaan rabay inaan guursado, iyadana aan maqaayad u furo. Anigana aan lacag fara badan aan helo si aan u samaysto mashruuc weyn oo aniga ii gaar ah. Sidaas darteed xilligaas lacag fara badan ayaan u baahnaa. Waxaa igu soo dhacday inaan aqaano nin aad barnaamijyadaas khatar ugu ah oo ii suurageli kara inaan lacaga badan helo. Wuxuu ahaa saaxiibkay, waxaana inagu ugu yeeri jirnay Freddy. Ka waran wareer bahashan soo khatar maahan. hagaag aad bay u fiicantaa Weliba anigoo da'daas ayaan iibin jiray gawaarida nooca ugu tayada sarreysa. Isagana si fiican ayaan u aqiinay Freddy iyo habka iyo dabeecadii wanaagsan oo uu noolaa. Arrinta la yaab kale waxay ahayd Freddy inuu ahaa ganacsade kontrabanka iyo mukhadaraadka ka ganacsada, laakiin ma dabeecad xumayn. Wuxuuna ahaa saaxiibkay. Saaxiib waxaan rabi lahaa lacag aad u fara badan weliba si degdeg ah. Niyahow dhankaas maxaad iga leedahay? imaqal Martin lacag fiican iyo shaqo fiican iyo nolol fiican ayaa haysataa waxaasna uma baahnid Waxaaba ii fiicnayd in aan taladiisaas barraaco. Laakiin aniga fudeed ayaa igu jiray. Fudeed weyn ayaa igu jiray. Waxaan u bareeray inaan baal maro shuruucda bulshooyinka adduunka. Waxaan ahay Martin. Waan u bareeray arrintaas. Waana wax iga soo go'ay. Waan samaynayaa arrintaas ama adiga aan kula qaraabta ama qolo kalabe. Wuxuu ugu yidhi, "Okay, haddii aad arrintaas rabto, Jaanis ayaan ku siinayaa." wow diyaaraa u tahay inaad aaddo Thailand oo heroin qaaddo oo weliba diyaarad la korto adigoo ka tegaya Australia Wax fudud ayay ila ahayd shaqadaas. Dadka aan aqiinayna ma jirin qof cuni jira herointa. Sidoo kaleeto wax macnaa ima lahayn. Waa meeqa lacagtu? 200,000 oo dollar Marnaba kama labalabayn. Qoyskayga kamaan fakirin, xataa gabadhii aniga ii doonnayd kamaan fakirin. Waan ku raacay. Marnaba kamaan fakirin cawaaqib xumada ka dhalan karta dambigaas. ku soo dhawow Thailand Mahadsanid. In yar ayaan safray noloshayda, laakiin anigu maan arag meel la mid ah Thailand. Durba waxaan u gartay inay tahay meel ka duwan adduunyada inteeda kale. Hallow. Sidee tahay Freddy? Freddy ima ogoleen inaan barnaamijka u baxo. Kaliya waxaan daawo jiray TV-ga. Muddo 3 maalmood ayaan sidaas ku joogay. Waana arrin daal badan. Kaartada waaba iska fududahaba. Waxaa ii iman doona Freddy oo kartoonno fara badan oo heroin ku xirxiraya jirkayga. Boosh gudaha ah ayuuna sidoo kale dhexda igu xirayaa si ay u suura gasho inay qarsoonaato herointa. Ugu dambeyn waxaan maqlay garaaca iridda. Waxaan arkay Freddy oo iridda taagan. Soo dhawaad Freddy. haye Waxaa soo galay Freddy oo ah isku dabaridaha hawshan. Wuxuu boorsadii kor saaray sariirta waxaana ka buuxa boorsadaasi aaladihii loo isticmaali lahaa cabaynta herointa. Freddy wuxuu bilaabay inuu daraasiin heroin ka soo saaro boorsada. Anigii yaab iyo fikir
waxaan mooda intaa kaliya inay yihiin balse wax badan ayuuba soo wadaa maantoo dhan tiradooda waxay ahayd 13 xirmo yaab wax badan baa ii soo baxa intaas kadib waa kaftamaysaa waxaan ma qari kari waxaanan hilmaami karin siduu ii fiiriyey wuxuu igu yidhi wixii soo hora jidhkaagaan ku tolaynaa si uu u deeqo oo u qarsoomo shaqayso waryaa waa niyadjab inaad aragto nin aad u haysatay saaxiib fiican indhihiisa oo aad mooddo sida kalluunka cas oo kale eegmadiisa dhab ahaantii wuxuu ahaa niyadjab hawshii ayuu bilaabay jidhkayga ayuu ku bilaabay inuu ku xirxiro herawiintii daraasiin fara badan weliba suuman adag iyo koolooyin ayuu jidhkayga si adag ugu xirayay dhabtii waxay ahayd naxariis darro jidhkayga waxaa ku xirxiran daraasiin herawiin ah ma awoodo inaan si fiican u neefsado xataa keligay inaan sarwaalka gashto ma awoodo waa isbiimayn weyn waxaan ku yidhi ka waran haddii aan suuli u baahdo wuxuu igu yidhi haba u baahanba waana markii ugu horreeday noloshayda aan lumiyo kalsoonidayda laakiin markii aan gashtay suudhkii iyo surwaalkii iyo shaadhkii waxaan u ekaaday sida nin buuran oo kale wax walba caadi bay ula ekaayeen Freddy sida aan filaynay waan qarinay herawiintii jidhkayga ayaa lagu kooleeyey culays badan cidhiidhi fara badan oo dhanka naftayda cabsi iyo walwal neefsasho la'aan waxyaabo badan baan ku jiray balse waxaan naftayda ku sasabayey inaan guulaysan doonno balse markii aan gaariga raacay taksiga waxaa aad ii hayey laba ka mid ah xirmooyinkii herawiinta oo aan isiri ma dhiiggaagay bay joojiyeen safarka Sydney ilaa Bangkok wuxuu qaatay 7 saacadood iyo bar tagsigii aan saarnaa wuxuu airportka magaalada ii sii waday muddo 10 daqiiqo ah waana halka ugu khatarta badan marka aan tagay airportka waxaan awoodi waayay inaan si fiican u istaago markaan gaariga ka soo degay xaalad adag ayaan ku sugnaa suumankii ayaa i dhibaataynayay jidhkayga ayay gubayeen kuleel baa igu shidnaa aniga dhan qolada immigrationka waxaad moodaaba inay aniga i fiirinayaan markaan saaray boorsadayda aan saaray miisaanka weliba xilligaas aan boorsada waday waxaan dareemaya culays waxaad moodaaba in murqahaygu ay dilaacayaan xanuun dartiis waana istaagsanaan waay waxaanba ku dhowaaday in aan miir daboolmo waan socday ma aanan isku dayay inaan fiiriyo meelaha iyo dadka si aan la ii dareemin ama aan la iiga shakin adigu xaaladdu waxay ahayd xaalad aad u daran aad baan uga dib dhacay halka diyaaradda lagu sugo waan soco waayey socodka ayaa aad ii dhibayey ilaa aan soo gaaray halkan waa checkpointiga ama halka la isaga baaro waxyaabaha macaadinta ah ee airportka si tartiiba ayaan u soo socdaa iyaguna si fog ayay ii eegayaan suuragal ima aha inaan dhutiyo ama aan iska dhigo qof naafo ah nafteyda waxaanba u moodayay aniga laftirkayga inaan gadaal u socdaba culays ayaan dareemayey socodkaygu wuxuu ahaa mid gaabis ah oo aad u gaabis ah ugu horreyn waan soo dhowaaday saacaddayda ayaan siibay iyo wixii furayaal ah oo aan watay waxaana saaray aaladdan yar waxaan ogaaday in aanay jirin meel halkan looga laabto soo soco waxaa la i saaray aaladdii sheegaysay macaadinta intaas kadibna waxaa la ila soo aaday mid yar oo gacanta lagu wato taas oo jidhkayga la saarayo aad baan u murugaysnaa intaas
waxaan xasuusiyey okiyaalahayga si aan daacad isaga dhigo. waxaad ilmaamtay okiyaalahaygi. wakhtigaasna waxaan ahaa 26 jir, umaan baahnayn okiyaalo, kaliya waxaan u watay in aan wejigayga laga akhrisan waxa aan ahay iyo waxa aan wado. intaas kadib waan guulaystay sidaan moodayey. ma aanan dareemin taabashadiisa, maxaa yeelay waxa uu taabanayay ma ahan jirkayga ee waxay ahaayeen xirmooyin heroin ah. dhibka ugu weyn waxaa ii keentay dhoolla caddaynteedii. waa la i qabtay. intaas kadib waxay bilaabeen inay furaan shaarkayga oo waxay arkeen in aan sito waxyaabo. waxay iga soo fureen xirmooyin fara badan oo heroin ah. booliis ayaa i qabtay. way farxeen oo waxay ku farxeen abaalmarinta ay heli doonaan. waxay bilaabeen inay miisaamaan. waxay noqotay 4 kiilogaraam iyo 700 oo garaam. waxaan ogaaday inaanay jirin meel loo baxsan karo. intaa kadib way iga tageen dhammaantood, oo waxaa qolkii ku soo haray aniga iyo miisaan heroin ah. markaas waxaan gartay in ay talo fara ka baxday. waan cunay, iyadoo herointa ayaan cunay. booliisku waxay bilaabeen intaas kadib inay ii soo qaadaan saldhigga booliiska. baskii wuu istaagay. mid ka mid a askartii booliiska ayaa furay albaabkii yaraa ee baska. isla ilbiriqsiyadaasi ayaan ku dulma tagay askarigaas. waxaan ma tagayo waa herointii. intaa kadib waxaa ii yimid ninkii aan ku dulma tagay. waxaan isdhahayay wuu ku dili doonaa, balse si naxariis leh ayuu garabka iiga taabtay, isagoo ileh hawalwelin, wax waliba waa caadi. isla wakhtigaasi waan ooyey. waxaan u ooyey sida gabadh yar. xagga dambe ayaan ka saaranahay baska. dhammaan ilaaladu waxay ugu hayaan qoryaha. laakiin nus saac kadib waxaan soo hor istaagnay guri weyn iriddiisa. ma aanan aqoon halka aan nimid. istaag, soo soco. durba waxaan maqlay dhawaqa silsiladaha ku xidhan maxaabiista lugahooda. waxay ahaayeen silsilada waaweyn oo aan caadi ahayn. waxaan isweydiinayey dembiilayaasha mudan kara in silsiladahaasi lagu xidho inaan ka mid ahay in kale. waxaa lugaha lagu gelinayaa maro suuf ah oo madow si aanay silsiladda kugu dhibaatayn. waana arrin niyad jab ah. Australia iska dhaaf dadka lagama oggola xayawaanka in la silsiladeeyo. waxaan weydiiyey meeqa sano ayaa halkan sii joogayaa. markaasuu 2 sano. 2 sano. waxaan u gartay inuu kaftamayo. ma uusan kaftamayn. sawaxan iyo buuq ayaa hal mar isqabsaday. way qaylinayaan. dad fara badan ayaa ka buuxay oo aan caadi ahayn. way badan yihiin dadku. hal mar ayuu igu tuuray xabsiga. qufulka ayuu ku boobay. waxaan dareemay jiriiraco. waxaan soo galay meel aanan weligay iman, xitaa aanan daawasho u iman.
waxaan dareemay inaan qafaal ahay. dad badan oo maxaabiis ah ayaa halkan ku jira. meelaad fadhiisata lama arko. kaliya waxaa bannaan meesha ay maxaabiistu lugaha dhigtaan. meesha waxaa ka buuxa wasakh iyo sidoo kale biyo lagu daadiyey. waa meel aad u adag in qof bini'aadam ah oo xor ah uu seexdo. saddex bilood kadib ayaa lay hor keenay maxkamadda. garsooruhu war badan ayuu daldalay. dhammaantood waxay ku hadlayeen afka Thailand. ma aanan garanayn wax meesha ka socda, balse waxaan sugayay xukunka. waxaa lagu xukumay 40 sano oo xarig ah. 40 sano xarig ah waa nambar aad u badan. waa xabsiga Bangkuang. waxaa lagu soo xiraa dadka ku xukuman dilka iyo sidoo kale mooryaanta, gaangiska. wax walba laysuma ogolo, xitaa biyaha. biyan caba ma heli karaa? lacag wixii ugu fiicnaa ee aan haystay waxay ahaayeen 2 joog oo kaba ah, kuwaas oo aad u cusbaa. qofkii soo gelaya xabsiga waxyaabo mamnuuc ah sida waxyaabo aanay ogeyn booliisku waxa uu la kulmaa ciqaab aad u xoog badan. bannaanka ayaa loo soo bixiyey qof naga mid ah. waxay u dileen si aan caadi ahayn. waxay la dhaceen feer iyo darbo ilaa qofkaasi uu si aan caadi ahayn u dhiig baxay. waxaan ku fekeray sidii aan ugu dhex milmi lahaa maxaabiistan u badan reer Thailand. ma yaqaanaan af Ingiriisiga, aniguna ma aqaana afka Thailand, balse waxaan haystay gitaar oo aan garaacayo muddo badan. sidaas ayaan ku bilaabay inaan ku milmo oo ay qaarkood ila noqdaan saaxiibo. If I told you I was fine. daal badan ayaa jira. lama yaqaano wax la sameeyo. dhibaatooyin fara badan ayaa iska jira. maalin maalmaha ka mid a anigoo iska fadhiya kursi ayuu ii yimid askari. adiga istaag nakeen. xaggee? warka dhaaf. 12 sano ayuu ka qaatay xabsigiisa Martin Grenes, kaasoo ahaa 40 sannadood. waxaaba la ii wadaa meel ka fiican meeshii hore. waa meel deggan oo ay joogaan dad ladan oo haysta kuraas qurux badan, raashin. waa maxaabiis balse u dhaqmaya sida inay yihiin ganacsato. waa ganacsato oo waa dad sideedoo kale ah oo horey u faa'iiday, kuwaas oo lagu soo qabtay maandooriyaha ama mukhadaraadka. waxay haystaan hanti fara badan. booliiska qayb ka mid ah ayay isfahmeen, kuwaas oo u adeega. waa qayb ka mid ah xabsiga, laakiin dawladdu ma oga. maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacay wax aan la filayn. wax waliban way burbureen. war muxuu maxbuuskani u haystaa xafiis ka weyn xafiiskayga? waxaan noqday qof caan ah. wuxuuna igu yidhi, waxaan ku wareejin doonaa Colombay. waxaan mooday in wadnuhu istaagay. waa xabsi ku yaalla buuraha korkooda, waxaana la geeyaa dadka lagu hayn waayo xabsiyada kale ee ku yaalla dalka, sida dadka waalwaalan, gaangiska. markii aan soo gaarnay xabsiga Colombay, waxay bilaabeen ardayaashu inay kala tuuraan oo ay la dhaqmaan si naxariis darraa. markii aan halkan imid waxaan ka argagaxay maxaabiista qaar wejiyadooda. waxaan weydiiyey waxa ay yihiin. waxaa la igu yidhi waa samurai. waa koox
gangis ah oo drugska isticmaala. waa nin ku xiran qol igu dheggan. alwaax ayaa lagu garaacayaa, si daran ayaa loo jirdilayaa. geeridu waa gaabis. mawdku ma kugu imanayo si degdeg ah. waan daalay. waxaan bilaabay inaan maskaxda iyo wacyiga si tartiiba ku waayo. waa meel adag oon bini aadan ku noolaan karin. waa meel daran oo ay joogaan dad aan naxariis lahayn. waxaan go'aansaday inaan nafta isdhaafiyo oo aan joojiyo raashinka. hoo cun. ilaaladu waxay u moodayaan dheeldheel markii aan bilaabayay raashinka soomidda. taasi way ga go'aan maxaa yeelay meeshu nolol ma taallo. tabartii way iga sii dhammaanaysaa, balse waan u bareeray. muslimiintu waxay ku tukanayaan bannaanka hore ee xabsiga. mar waliba codkaas naxariista le ayaan maqlaa. way tukanayaan, salaad ayay tukanayaan. waa cod nabdoon oo naxariis leh oo qalbigaaga gelinaya degganaan iyo xasilooni. dibadda hore ee xabsiga ayaan eegay. waxaa taagan nin bakistaani ah oo jab yar. waxaan idhi, soo dhowaaw. wuxuu ii sheegay magaciisa. magacaygu waa xabiib. nabadgelya dushaada ha ahaato. mar kale ayuu ii soo laabtay xabiib. wuxuu wataa markan casiir ayuu wataa. wuxuu ugu yidhi, hoo ila cab. markaas baan ku yidhi mahadsanid. waxaan ku yidhi waan dhimanayaa. markaasuu yidhi maya, ha yeelin sidaas. waa yaa kuu sheegay? markaas ayuu wuxuu igu yidhi, intuu farta ku fiiqay kor allaah. markaas aad baan uga carooday. warbax igala tag sheekadaada. isagoo qur'aanka wata ayuu ii soo laabtay. wuxuu leeyahay, waa kan qur'aanka oo odhanaya naftaada ha isku halligin ama ha isdilin. ugu dambayn waxaan go'aan ku gaaray inaan joojiyo raashinka soomidda oo aan diinta islaamka qaato. waan islaamay. waxaan bilaabay in aan weesaysto iyo in aan qubaysto iyo sidoo kale inaan 5 jeer habeenii maalin tukado oo aan ku tukado weliba luqad aan ahayn af Ingiriisiga. ugu dambayn 2015 ayaa lagu sii daayay Martin Greneth cafiska boqorka Thailand, isagoona xabsiga ku jiray 21 sano.